halkani waa BBC London saacada Afrikada bari iminka waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah kulan waxaana wanaagsan khiyaatada dhageysanaysa meel walba caalamka ka joogtaan waa galab Jimcaha 26 bisha Oktoobar wararka caalamka kadibna waa barnaamijka dooda Jimcaha waxaanu ku eegaynaa sababaha ay u soo noqdaan colaadaha iyo dagaalada beelaha Soomaalida xataa hadii la heshiiyo oo la isdaarsado iyo waxa ku dhacay xeerkii hore ee lagu kala bixi jiray colaadaha dad kitaab quraan waa tahay wararka caalamka ee BBC-dana waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga oo dalbaday in loo sheego ciddii bixisay amarkii lagu dilay journalistii Khashoggi waxaana uu yiri waxa loo baahan yahay meedkiisina in la helo waa tahay barkana barnaamijka aadan Saalimiin isku soo dubriday aan ku bilaabo wararka caalamka ee BBC-da iyo Kawsar Maxamed Cabdullaahi aad baad mahadsan tahay Cabdi Nuur madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa boqortooyada Turkiga ka dalbaday inuu ogaado ciddii amartay dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo lagu qaarijiyay qunsuliyadda ee Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga. Erdogan waxa uu sidoo kale doonayaa halkii u dambeysay meydka wariyaha. dacwad oogaha Saudi Arabia waxa uu shalay sheegay in dilkii wariye Jamaal oo bilowgii bishan uu ahaa mid la qorsheeyay. mas-uuliyiinta waxay horaan diideen inay wax ka og yihiin halkii u dambeysay qoraagaasi waxa ayna sheegeen in la waayay dilkiisana waxay ku eedeeyeen kuwo fuliyay howlgal qaldan. Sacuudiga waxa uu xiray 18 qof waxaana uu shaqada ka tiray 2 kale oo ah la taliyaha boqorka Sacuudiga Mohammed bin Salman. wasiirka dhaqaalaha Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in mamnuuca iibinta hubka uu midowga Yurub ka iibinayo Saudi Arabia ay tahay arin u baahan in la tixgeliyo kadib dilkii saxafi Jamaal Khashoggi. fikradda ayaa waxa soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Austria Karin Neisel. khamiistii shalay ahaydna baarlamaanka Yurub waxa uu sidoo kale baasmariyay xal ka soo yeeray midowga Yurub oo lagu sii ballaarinayo xayiraadaasi. Jarmalka ayaa si ku meel gaar ah u joojiyay iibinta hubka Sacuudiga ilaa sal laga gaarayo ama ilaa laga sal gaarayo dilkii wariye Jamaal Khashoggi. laanta dambi baarista Mareykanka FBI-da ayaa xaqiijisay inay heleen 2 qof oo kale oo loogu shakisan yahay kartoon bom loogu shakiyay oo loo diray madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. midkii ugu dambeeyay ayaa waxaa loo diray agaasimihii hore ee sirdoonka qaranka James Clapper waxaana laga helay xafiiska boostada ee New York. mid kale waxaa lala eegtay Senator Cory Booker waxaana laga helay Florida. booliska ayaa sheegay in kartoonadii ugu dambeeyay ay u egyihiin 10 kale oo la diray horaantii toddobaadkan. booliska waxay isku dayayaan inay ogaadaan ciddii dirtay kartoonadaasi oo bamka looga shakiyay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu sheegay in xalka Japan uu dib u soo laabtay kadib markii uu si rasmi ah ula kulmay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. booqashada waxaa loo arkaa tallaabo dhaqaale oo ay qaadeen dalalka 2 iyo 3 ee ugu dhaqaalaha badan dunida iyagoo wajahaya canshuuraha dheeriga ah ee Mareykanka. Mr. Abe ayaa ka digay in horumar dhab ah ee la xiriira ama waa horumar dhab ah ee xiriirka ka dhaxeeya Japan iyo Shiinaha ay suurtagal noqon karto oo kaliya haddii ay jirto xasilooni oo dhanka iyo bariga badda Shiinaha.
waa booqashadii ugu horeysay oo uu Shiinaha ku tago ra'iisul wasaaraha Japan tan iyo sanadkii 2011. ugu dambeyntiina la taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka John Bolton ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump uu martigelinayo ra'iisul wasaaraha Ruushka Vladimir Putin oo booqasho uu ku tagayo Washington sanadka soo socda. Mr. Bolton ayaa waxa uu ballaariyay booqashada markii uu Putin kula kulmay Moscow horaantii toddobaadkan, waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay ku kulmaan dalka Paris bisha soo socota. arrintan martiqaadka ayaa timid iyadoo uu xiriir aan wanaagsaneyn uu ka dhaxeeyo labada dal siba arrimaha hubka nuclear-ka iyo khilaafka u dhaxeeya Suuriya iyo Ukraine. warkii dunidana waa naga intaa oo si toos idinkaga imanaya stuudiyaha Nairobi aan haatana dib idinkugu celiyo Cabdinuur iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Kawsar aad bay u mahadsan tahay. warkaas caalamka halkaad kala socotaanna waa BBC London. waa tahay kulan wanaagsan mar kale khiyartana degeysanaysay dhammaantiin meel kasta aad joogtaan. Soomaaliya iyo wadamo kale weli waxaa taala tacsidii dad ka badan 50 qof oo ku dhintay colaadii deegaana ka tirsan gobolka Sool oo ay isku laayeen laba qolo oo isku beel ah. walow ay xiisadii taagan tahay haddana dagaal lama soo sheegin shalay maanta, saasoo kale lama soo sheegin cid ku kale dhex jirta. waxaase socda baaqiyo iyo dadaalo nabadeed iyo salaadiin xal raadinaya iyo siyaasiyiin iyo ganacsato iyo weliba ururada bulshada oo aan kala harin. shakeysa ayaa jira in si degdeg ah xal looga gaari karo dagaalkan, sababtoo ah heshiis xabad joojina iyo magbixin iyo kuwo hore loo gaaray dhowr sano iyadoo colaadani ay jirtay ayaa hirgeli waayey. waxaase wax weyn laga saarayaa waxa weeye halkii dhul iyo ceel iyo geed iyo gabar lagu dagaalami jiray berigii hore. iminka sheekadii waxaa carqaladeeyey baa laleeyahay oo ku soo biiray siyaasad iyo lacago iyo wax lamid a. dooda galabtay waxaa falanqaynteeda marti noogu ah agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waa Cabdirashiid Xaashi, laakiin iminka jooga magaalada Toronto ee dalka Canada oo khadka halkaa kaga jira, iyo Cilmi Faarax Webi oo dowladihii hore ee kumeel gaarka ahaa xilal ka soo qabtay gobollo ka mid ah waddankana ka soo shaqeeyay oo guddoomiye gobol soo noqday colaadaha Soomaalida iyo waxyaabaha isku hayaan wax kala socda. Muqdisho ayuu isaguna kaga jiraa. waxaa lagu soo biiraya isaguna Guuleed Saalax agaasimaha macadka cilmi baarista Soomaalida oo xaruntiisu tahay Garowe oo isaguna magaalada Muqdisho jooga. waa tahay aad iyo aad baad khiyaarta u mahadsan tihiin. waxaan jeclaan lahaa inaan tusaale u soo qaadano colaadan u dambeysay gobolka Sool, iyadoo oo barnaamijka doodu runtii uusan isaga ahayn, laakiin aanu eegayno mawduuc ahaan bal inaan ka baaraan degno tan oo kale iyo casharada laga baran karo. martida ayaan jeclaan lahaa bal inaan u bandhigo colaadaha beelaha Soomaalida horta aan u galno. waxaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro Cilmi Faarax oo Muqdisho jooga. cabdinuur waa ku salaamay adiga iyo saaxiibada kale khadka ku jira iyo shaqaalaha BBC-da iyo dadka Soomaaliyeed oo meel walba iga dhageysanaya dunida dacaladeeda. dabcan baaxadda dagaalka dhumay koonfurta Sool uu leeyahay ayaan filayaa inay sababtay maantay in dadka Soomaaliyeed baaqiyo badan ay ka diraan, idinkuna aad ku soo qaadataan barnaamij gaar ah. dagaalada sokeeye dalka Soomaaliya kuma cusba oo dee taariikha dheer bay leeyihiin, maadaama dad reer guura ah xoolo dhaqato ah ay u badnaayeen. dagaalo sokeeye oo dambe oo siyaasadeedna ay jirtay, laakiin waxa miisaanka ama culayska u yeelayo dagaalkan toddobaadkan umay ka dhacay koonfurta Sool waxa weeye inta la xusuusan yahay ama dawladdii hore Soomaaliya ilaa 90kii waa la qori jiray oo waa la record garay jiray dadka ku dhinta dagaalada sokeeye. intii ka dambeysana dabcan dadka Soomaaliyeed dad isxan moog ama iska warqabin maaha, waa dad isla socday dagaaladaasu. sababta dagaalkan umay baaxadda weyn ama baaqyada badan ugu yeelaysaahu waxay tahay waxa la leeyahay waa sida la leeyahay waxa ku dhintay dad ka badan 50, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 80.
taasi marka waxay na tusaysaa haddii aan rikoorka dagaaladii Soomaaliya dib ugu noqono ama rikoorkii wasaaradda arrimaha gudaha u qornaa jiray 90kii ka hor dib ugu noqono ama wixii ka dambeeyay dagaaladii sokeeye ee hadda beelaha Soomaaliya dagaaladoodii inaanay weli dhicin in rikoorna aan muddo maalin ah oo weliba saacada aan maalin buuxda aan ahayn oo 6 saacadood 7 saacadood in baaxadda tira ka badan 100 iyo dheeraad ay ku dhimato ayaa horta sabab ah arrintaas oo aan u arki karno inay tahay runtii rikoor cusub oo taariikhda galayo oo nasiib darro ay tahay inaan ilaa iyo hadda ka hor dadka Soomaaliyeed ama dawladihii hore ama kuwa hadda jiraahu inaanay qorin oo aanay diiwaanka gelin in saacado wax ka badan 100 qofood ay dhibaato dad Soomaaliyeed soo kala gaar طبعا وبي colaado cabdirashiid toronto haddaan u galo markiisa cabdirashiid colaad bered waa la yiqiinay meel laga bilaabo meel ku dhamaatay lahayd iminka maxaa soo kordhay maxaa ku wacan dhibaatooyinkan keenay inay soo noqnoqdaan waa mahadsan tahay cabdinuur iyo siyaashay waana salaamaya iyo mas-uulka kale iyo mas-uuliyada kale ugula jira dooda horta dagaalada Soomaaliya ka dhaca iyo guud ahaan arrimaha ka taagan deegaanada Soomaalida dhinacyo kala duwan baa laga soo eegi karaa sida hadda walaalkeyga sheegay dhinac waxaa laga soo eegi karaa degmadaas iyo deegaankaas waxa ka dhacay iyo waxa markaas xabadda in la isku dhufta keenay ama ceel ha noqoto ama aana qabiil ha noqoto ama wax xoolo la isku haysto ha noqoto ama fidna kale ha noqoto halkaas doorbinka waa la saari karaa waa lagu mashquuli karaa degmada waxaa kaloo lagu mashquuli karaa deegaanka Sool iyo dhinacaas beelaha dega iyo aagaas oo runtii culeys iska haystaan Soomaaliya dhan baa furfurantay iyaguna si u furfuran iyagana isha hadii la rabo waa la saari karaa waa lagu dul xasili karaa maxaa halkan ka jira waa la isweydiin karaa korna waa looga soo bixi karaayo dawlad la-aanta iyo burburka iyo dagaalka sokeeye iyo iska daba kalaabashada Soomaalida iyo siyaasadda adigu carabka ku dhufatay intana waa lagu fiirin karaa guud ahaanna waxaa la oran karaa Soomaalidu adduunkuna hadda Denmark baa hadda lagu sheegaa wadamada adduunka ugu degan oo ugu xasilan oo shacabkooda ugu miyir qabo oo ugu nolol fiican yahay iyo wadamadaas iyo Soomaalidu ma kala fiicna oo hadda iyaguna falfal wanaag uma dhalan anaguna falfal uma ana dhalan iyaga system baa jira wadamada degan oo dadkooda hore u socdaan oo nolosha u kala socoto waxyaabo lagu yaqaanaa jira calaamada ka soo daahiray baa jira waxay haystaan nidaam baa u dhisan oo maaragtay dawliya u dhisan oo gaar ahaan waxa u dhisan macnaha garsoor fiican baa u dhisan waxa u dhisan maxaa la yidhahdaa adeegyadii dawladda dhisan waxaa dhisan shacabkii codkii leh oo dawladaha kala bedbedelanaya dhisan waxbaa u dhisan annaga marka Soomaalida ama Soomaaliya ha joogaan ama Sool iyo Sana ka joogaan ama Khaatimaha ha joogaan ama Soomaaliya ha joogaan 25 sano oo dawladeena si daciifaysay iyo 25 sano kale oo ay dawlad baan haysan oo iska daba ordaynay baa runtii waxay keentay in la bololo noqdo meeshii la taabtana ay marka ay diismayso ama maal ka soo baxayso sidaas darteed runtii degmadana waa la dulbigi karaa deegaankana waa la fiirin karaa iyo beelaha meelaha degan Soomaalidana si la fiirin karaa kulligood marka la fiiriyana caqli xumo baa lagu soo aruurin karaa in maaragtay haddana Ethiopia darisnala ilaa dayaxan aadayna mar dhow haweenna madax ka dhiganaya oo saas maaragtay howlahooda u kala dabaranaya annaguna inaan maaragtay hasi walaalkii sheegay hal maalin ama 50 qof la dilaayo ama 100 la dhaawacayo waxaan waali ahayn oo lagu fasiri karo ma jiro waxaa kaloo la oran karaa waa dawlad la-aan waxaa la oran karaa waa hoggaan la-aan siyaasiyiintana maahan xataa bulshadii oo dhan baa ku ceebeysan culimada ku ceebeysan dhaqankii baa ku ceebeysan oo dhaqankeena kumanaan kun oo sano dagaalada joojin jiray xakameyn jiray aad iyo aad waxaa ku ceebeysan bulshada rayidka marka runtii ceeb Soomaaliyeed wey aad iyo aad baad mahadsantahay cabdirashiid waa kuu soo noqonaya qodobkaasna waa gelaynaa saarax guuleed maxaad ku dari lahayd siba waqtiyadan dambe sababaha keena dagaalada beelaha siba dhul cidla ah oo matalan la isku dilayo oo kale waa mahadsantahay cabdinuur waana salaamaya adiga iyo akhyaarta jira dooda iyo dhamaan ummadana dhegeysanaysa
runtii dhinahaas ay odayaashu ay si guud u taataabteen ayaad moodaa inay ku ag wareegeyso gaar ahaan cabdirashiid uu qoqodoleeyey yani waxyaalaha inta badan keenaya soo lalaabashada dagaalada tan haddaan hoos ugu sii daadego waxaan isleeyahay markii koowaad oo xataa deegaankan laftigiisu ay wax ka dhacaan ma aha horay ayay dhacdooyin noocan uga soo dhaceen kuwa lamidana waxay ka dhaceen yani deegaano badan oo soomaaliya inkastoo baaxadda ay maaragtay aada u kala duwan tahay iyo saameynta uu yeelanayo marka waxyaalaha aan isleeyahay gooni ahaan dagaalkan hadda u dhameeyey oo sool ka dhacay dhiman ka dhacayay iyo kuwa lamidka ah inay soo laalaabtaan waxaa fududeynaya waxa ugu weyn waxa weeye mar walba oo la heshiiyo oo ay isku yimaadaan muqaasho iyo waxgaradka oo lagu soo baxo waxaad moodaa inta akhyaarta ah baa madasha la iskugu keenaa waxay is yidhaahdaa heshiiya kala taga oo marka ku kala laabto deegaanadii fogfogaa iyo meelihii ay ka yimaadeen marna hoos looguma daadegin dadkan iyagu islaynaya wax kala tabanaya qoryaha isku haysta laftigooda in waxaweye nabadda laga qeybgeliyo guryo waxaa jira ay runtii dhibaatooyin badan kasoo gaarto waa la tuuraa waxaa la yidhaahdaa intan 20 baa ka dhimatay 20kan kale ha loo jaro wixii waxaa moodaa kor baa laga wada salaaxa oo xataa xuquuqdii dadkan dhintay iyo xaafadihii la rabay in mataqaana magahoodii lakala siiyo oo lagu kala xasilo waxaad moodaa kor baa laga salaaxa marka hurdintii mar walba hoos bay ka jirtaa oo dadkii dagaalamayay oo dhisatan iyagu maaragtay ay gaatay ama isgaarsiiyey waxaad moodaa looguma daadego maaragtay heshiiska inay qeyb ka noqdaan tan labaad iyadana waxa weeye mar walba oo la heshiis yani uu heshiis dhaco gacantii waxaa ka maqan sida cabdisii sharaxayay dowladnimada ilaalin lahayd waxa kan qabaailada ku heshiiyeen cidda jebisa yani nidaamka cadaalada keeni lahayd hay-adihii cadaalada iyo maaragtay nabadgelyada ee markaa fulin lahaa wax walba oo qabaailkani ay si hoose ugu heshiiyaan oo gacan ka xoog badan gacantan shacabka oo la rabay waxa inay ilaaliso dhaqanaanshaheeda iyadana wuxuu fududeynayaa soo laalaabashada colaadaha kan qoryaha laftigooda iyo hubkii oo marakan aada moodid in si xad dhaafa uu ugu sii faafayo ama qof walba ama guri walba uu sii hubeynayo laftigooda waxay fududeynaysaa in si fudud ay wax walba iskaga dhacaan oo yani waa garan karaysaa meel 50 qof ku dhinteen hal mara hubka iyo maaragtay iyo xataa technicada laiskula imaanayo oo qabaailadu ay haystaan iyo hubkaa shacabka faraha ku jira oo kusii badanaya laftigeeda wuxuu sii hudinayaa in si fudud ay wax ku bilowdaan mar walba tan guud oo jahliga iyo caqli xumada iyo diin darada oo aada moodeysid dad ummad dhan oo yani dhibaato intaa la eg hal mara ay gaarayso oo weliba ay kusoo laalaabanayso haddana daqnasho badan iyo aan hoos isku weydiinin war waxa kan intaana ummada maxay nooga dhimatay diinteena waxay sheegaysaa dadka muslimiinta ah oo islaaya ilaa nabigeena sal l slam wuxuu gaarsiiyey in ay qofka muslimka ah oo inta ay jiriraan labada qof labaduba ay khatar u yihiin naar inay galaan waa tahay waa si fiican baa waxaan isleeyahay jahli badan oo u baahan maaragtay in kaalintii culimada iyo waxgaradku waa usoo noqonaynaa kuwaas degaan oo ummadda kuwaas kaalintoodii waa usoo noqonaynaa cilmigobi haddaan u baaqo dhowr gobol baad horey guddoomiye uga soo noqotay soomaaliya tusaale ma naga siin kartaa waxba nooga sheegi kartaa matalan colaadihii runtii lagu riiqday dabeetana laga heshiiyey iyo sababihii keenay hay cabdi nuur sida aan horeyba u sheegay dalka soomaaliya dawladihiisu waa la qori jira waa la record garay jiray dagaalada ugu culus oo dalka soomaaliya ka dhacay 30kii sano gobonimada haysanay dagaalada sokeeye ee soomaaliya horey uga dhici jiray horta waxay u badnaayeen gobolada bartamaha soomaaliya puntland iyo somaliland ayaa 80% ama 90 aan dhehe haddii alla ku imanayo ay ahaayeen gobolada ay joogta dagaaladu ugu soo noqon jireen waana gobolada ay u badan yihiin dadka reer guuraaga ahu ama xoolo dhaqatada ama geeleyda ah sababtuna daaqa iyo biyaha ayaa inta badan u ahaa dhulkaas aan sheego baaxadda intaa la eg leh way ku kala culays badneed oo gobolada laftooda waa ku kala miisaan weynaayeen oo taariikhda dhowr iyo 60kii matalan dagaal ka dhacay waqooyi galbeed ayaa taariikhda wasaaradda arrimaha dibadda u diiwaan gashan oo markii dambe si qaran loo wajahay
waxaa jiray dagaalo ka dhacay gobolkii hore loo oran jiray mudug ama gaalkacyo u gaar ah oo iyaduna dhowr jeer soo noqotay oo iyaduna si qaran loo xaliyey gobolkan galguduud laftiisu waa dagaalo badnaayo aad iyo aad dagaaladiisu u badnaayeen nawaaxigan u dhaxeeya gobolka hiiraan iyo galguduud isaguna wuxuu ahay dagaalo kama qaboobi jirin inta badan haddii aan tusaale soo qaato waxaan xusuustaa xilligii dawladda burburka uu dhawaayey adigu 98 ayaa dagaal runtii aad u culays badnaay ayaa waxaa ka jira gobolka mudug dagaalkaas oo weliba dhowr beelood oo kala duwan oo ay lahaayeen runtii arrintaasu si qarana loo wajahay gobolkaasu kuma filnayn baaxadda iyo culayska iyo miisaanka uu leeyahay inta badanna dagaalada sokeeya markay qaraxaan ama xilli horan ha noqoto ama xilligan hadda la jooga ha noqotee waxaa soo galo oo dibadda ka soo galo gacmo oo dagaalka kaalmeeyo oo dhaqaale ahaan ku kaalmeeyo siyaasad ahaanna ku kaalmeeyo dagaalka gaalkacyo runtii ka dhacay nawaaxigeeda wuxuu ahay dagaalkii ugu dambeeyey ee dawladdii dhexe Soomaaliya ay runtii juhdi weyn gelisay ilaa 3 bilood ku dhawaad ayaa la fadhiyay 100 ruux oo laga soo xulay dadka Soomaaliyeed dadkoodii ugu ama tayada wanaagsanay ama ugu haldoorsanaay ama ugu culumaysanaa ayaa meeshaas tagay waxaan ka xusi karaa ragga meesha hogaaminaya wasiirka hore kalluumaysiga aadan maxamed cali xilligaas oo anu goboltoore ka ahaa waxaa ka mid ah ugaas khaliif ugaas rooble oo ahay nin caan oo Soomaalidu ay aad u wada taqaano oo ugaas gobolada dhexe ahaa waxaa ka mid ah Sheekh Ibrahim Suuley oo asaguna ah sheekh caalima waxaad mooday marka arrinta ayada ah si hoose ayaa loo dhaxgalo colaad muddo dheer soo jiitamaysay oo si qaran loo xaliyay beed waana lagu daawoobay wixii xilliga ka dambeeyana dagaal runtii kama aanay dhicin sidaas si lamida ayaa waqooyi galbeed iyaduna dhowr iyo 60kii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda dagaal asaguna beelo ku dhaxmaro kulli taariikhda dadka nooli iyo dadkii taariikhaha soo akhristay waa ogyiina oo jiray asagana si qarana lagu wajahay dagaal ka dhacay asaguna nawaaxigan hiiraan iyo dhulkan ceelgaarta la yiraahdo iyo galgaduud inta u dhaxaysa asaguna dagaal kale oo dhowr iyo 60kii oo ah asaguna si qaran loo wajahay dagaalada kale way iska badnaayeen laakiin hadda dawladihii markaas jiray sababta ugu fududaatay in dagaaladu koonfurta ay ku yaraadaan waxa sabab u ahaa koonfurtu mar walba caasimaduna waa u dhaweed oo awoodii ciidanka iyo qarankuna caasimaday tiile oo Baydhabo iyo Kismaayo iyo Jowhar iyo waxa ka dhaca gurmadkoodu degdeg buu gaari jiray dadka deganoona dad beeraley ay u badnaayeen oo dad ka qabow oo inta badan oon beer iyo wax u noocaas lagu dagaalamo saasa marka xalku ku imaan jiray saasa xalku ku imaan jiray marka dawladda dhexe mar walba xaaladuhu markay faraha ka baxaan oo xaaladan hadda ka dhacday umayo kale ay dhacdo si toos ah wax u soo farageli jiray dawladda Soomaaliyeed kuwa kalena waa ka hadli doonaayo iyaga lafaantooda dawladii lafteedii lagu eedeynayay inay ka dambeysay aad baad u mahadsantahay cilmi halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga BBC London barnaamijka waxay la tahay dooda Jimcaha oo galabtana aanu ku eegayno colaadda beelaha Soomaalida dhex marta qaar ka mid ah dhageystayaasha bal aaraadooda aan maqalno magacaymay baleeray Faysal Maxamed Bakaal oo rooga magaalada Baydhabo xarunta koonfur galbeed runtii eedii aan ku humad galbeedyada oo diban usboonaysi oo hatana dad badan oo shacab badan dhalinyaro badan oo ka dhimada hayta oo dagaaladaas runtii la ero koro wal oo meelay oo eedii aan ku humada koro oo shacabka ka dhamaadahay runtii dadka isdagaalahayaan may baan sheegay in ka baaqay intii aqlaga ku shaqeysiyaan oo meelay isku dhaafan dagaal oo meelay ana han kordhiyaan oo runtii dagaal siisba unugle ka dhimada ma unug ma ka dhalalow waxa waadan kulmiye xawaakiin oo joogta magaalada Hargeysa waan ka xumahay dagaalada ku soo laalaabta dadka beelaha Soomaaliyeed balse waxaa filayaa in xeerkii Soomaalidu berigii hore ku kala bixi jirtay laga leexday balse waxaan islahaaba dadka Soomaalidu waxay gaadheen waqtiga casriga ayay la jaan qaadi doonaan
oo way iska dhaafi doonaan qabiilka iyo qabyaalada balse iminka unbayba dib usoo cusboonaanaysaa oo aana iyo waxyaabo beriyo hore lasoo dhaafay dib u bilaabmayaan. waa shuuka aadan guray oo jooga magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. nasiib darra dadka Soomaaliyeed inuu maanta oo la jooga adduun casri ah iyo qarnigii 21 uu dagaal iyo qabiil isku laayanayo dadna kaga dhimanahay. runtiina sababta ugu weyn dagaal beeleedyada ay keenta waa dawlad la'aanta Soomaaliya sodonka sano ka jirta iyo dadkan oo wax kala dhexdhexaadiya waayay. ismada dhaqanka runtii doorkooda waa door hoos u liita hadal afka laga yiraahdo wax uu tirahayo male. waxaana arrintan uga sii daray iyadana maamul goboleedyada oo deegaameysi iyo haab qabaa'il ku dhisan xuduud lagu kala gartana aan lahayn. maamulada qabiilada kala taabacsanna ay mar walba isku laayaan dhul mid la aan la garanayn. qaar kamid ah dhageystayaasha ayay ahaayeen. halkaad nagala socotaana waa BBC London. marka uu dhib dhaco dadku waa iska niyad fiican yihiin oo markiiba baaqiyo nabadeed ayaa la diraa, dhinacyada ay khusaysa loo kala diraa, ergooyin iyo dad baa ku baxa. waa ay ku saxan yihiin, laakiin habbaa jiri jirtay Soomaalidu ay ku faani jirto ay ku kala bixi jireen oo khilaafaadka qabaa'ilka iyo beelaha dhexdooda iyo waxyaabahaas oo dhan lagu xallin jiray. kii hadda ma laga baxay? haddii laga baxay se maxaa bedelay? cabdirashiid adaa agaasimaha macadka ah oo daraasadana arrintan ku sameeyey. hallo cabdirashiid Toronto waa tahay waa ku celinaya khadkiisaa naga go-ay maadaama agaasimo kale oo macad isaguna daraasaadka sameeya sidra uu isna khadka ku jiro. guuleed su-aashaas lafahanteedaan jeclaan lahaa, bal habkii hore ee dhaqanka ahaa ee Soomaalidu ay ku kala bixi jirtay iminka waxaad moodaa wax inay bedeleen. ma laga baxay baad isleedahay? haddii laga baxay maxaa bedelay? xaggee ciladu ka jirta? cabdinuur waa mahadsan tahay walaal. runtii sida uu walaalkay cilmiba sheegay dagaaladani muddooyin horoo badan oo ilaa xilligii burburkan ka horeeyay ayay soo jiri jireen. laba qaabba oo ishareer socdaba inta badan waa lagu xallin jiray. nidaamka qabaa'ilka iyo odayaasha iyo waxgaradka oo runtii xakameyn fiican ku sameyn jiray colaadaha ka inaysan sii faafin, ka shaqeyn jiray wixii qabaa'ilada kala gorkooda hawlaha markaa taagtaagana inay ka shaqeeyaan, iyo markaa gacanta sare oo dawladda ahayd oo runtii ayaduna gacan ka awood badan shacabka oo ahayd maaragtay in wax allaale iyo wixii amni darra ay gacan beer ku qabato, wixii qabaa'ilada ay isku afgartaan oo markaa hoosana oo wanaagana fulintiisa nidaamka cadaaladda ee dawladda iyo ka nabadgelyadaba waxaweye loo isticmaali jiray fulintooda. marka burburka intii uu dhacay cabdinuura waxaad moodaa burburkii meel walba ayuu taaftay. nidaam darrada iyada laftigeeda ayaa waxay tahay qeybta u weyn oo mar walba wax walba oo colaad iyo dhib ah ay dugsanayso. mar haddii meesha nidaam uu ka maqan yahay waxaa fududaanaysa in nidaam darradu ay hesho jaanisyo badan ay hesho oo ay yani aysan meeshii jirin nidaamkii dawladeed oo waxa kan gacan fiican ku qaban lahaa. tan kale waxa weeye dadku laftigoodu dad yani kooban oo inta badan hub uusan gacantooda ku jirin oo yani hubkan waaweyn weliba iyo qoryaha kan aysan access badan iyo maaragtay haysasho badan aysan ku jirin. wadcigii isagoo isbedelay oo hubkiyo yani faraha ka baxay, dadka laftigoodii oo maaragtay burburkii uu saameeyey oo nidaam darrada intay ku dhex koreen oo la qabsadeen qabyaaladii oo iyaduna maaragtay baar lasii baxday. waxaasoo dhan nidaamkii waxbarasho oo isaguna meesha ka maqan oo dadkii dhalinyarada ahaa oo maaragtay weliba meelaha deegaanada colaad inta badan ay kusoo laalaabtaan waa meelaha miyiga iyo tuulooyinka ah oo waxbarasho fiican aysan markaa dhalinyarada aysan helayn. marka waxaad moodaa qaabkii cabdinuur loo noolaa beriga hore iyo qaabkan hadda yani lagu sugan yahay ayaa aada maaragtay farqi weyn ugu dhexeeya. hadduu ahaan lahaa nidaamkii dawladeed oo maqan iyo hadday ahaan lahayd ummaddu laftigeeda qaabkii ay u nooleyd oo hadda ka bedelan qaabkii hore. aad iyo aad waa ku gartay guuleed, aad baad umahadsan tahay. cilmi haddaaya waxaad xustay kaalinta xukuumad iyo xal uhelidda dagaalada beelaha. iminka waan la wada soconaayo xukuumadda Soomaaliya male awood waddanka o dhan ay ku wada xukunto. sidii aad sheegtayna awood ballaaran ma adeegsan karto. haddii marka madaxda qabaa'ilka lafaantoodu ay xal waayeen oo colaadahana ay soo noqnoqonayaan,
aaway kaalintii dowlad goboleedyada ilan maamulkii maamul bay sheeganayaan iyo inay meeshii xukumaan cilmi nuur waa runta sidaad sheegtay waa in mas-uuliyadu ay jirtaa sidaan ka warqabno dalka Soomaaliya hadda oo dowladda dhexe oo xamar iyadu oo inta badan ku kooban ma ahane dalka waxa sheegto ama gacanta ku hayaano ama yaan ani ku hayne in dowlad goboleedyada ay mas'uul ka yihiin marka arrinta isweydiinta mudan lafteedu waxay tahay aagan hadda umay dhibaatadu ay ka dhacday yaa sheeganayo mas'uuliyadeeda haddii mas'uuliyadaas cidu sheegato oo dowlad goboleedyada ama Puntland oo u dhow ama Somaliland oo aan filayo inay iyaduna kulli dhanka sool dhinac badan kaga jirto haddii cidu sheegato ma ka baxsanayaan mas'uuliyadaas sababta waxa waaye hubka inta la eg dagaalkan dhacay Cabdi Nuur ma aha dagaal maalin ku dhacay ma aha in konton qofood dhimato 80 la dhaawacanto waa dagaal muddo dheer la qorsheynayay la abaabulayay hubkiisa iyo saaradiisa iyo taakuleyntiisa iyo rasaastiisa waa ognahay dagaalada Soomaaliyeed inta badan ma socdaan 2 saacadood wax ka badan waxay ku socon waayaan inta badan waxa daliil u ah oo sabab u ah waxa ku yar dhaqaalaha la gelina marka in dowlad goboleedyada aagaas umay mas'uuliyadeeda cidda sheeganaysa runtii kama baxsan karto in maantay dagaal 6 saacadood socday 100 qofood dad ku dhow ama ka badan ay muxuu ahaa hadii alla ku ognahay ay ku dhintaan marka waxa weeye waa in la cadeeyo yaa mas'uul ka ah suurtagalna ma aha in la yiraahdo dhulka annaga xakuno dadkii Soomaaliyeedna ay islaayaan oo sida ay guuldarro weyn u dhacdo dadkan dad Soomaaliyeed waa xoogii Soomaaliya waa dhalinyaradii Soomaaliya waa mustaqbalkii Soomaaliya in 100 qofood ay khadka ka baxdo iyadoo la sheeganayo annaga deegaan xakuno runtii arrin la qaado kala ma aha waxa kale Cabdi Nuur waan rabay inaan raacsiyo sida walaalkii uu sheegay dowlad la'aanta iyo dhulkaan furan oo ciidu xukumin oo hadee dadka waxbaan xukunaalahoona ay dadka xukumaan dad hubaysan oo qalabaysan oo ciidan haysta ay yihiin nin walba qorigiisa ka ugu fudud oo u duugan yahay ama oo banaanka ku haysto waxa uu weeliyay lafteeda dhaqanka dhaawac weyn soo gaaray xilligii dowladii hore ama dowladii kulli aan ka shaqeyn jiray wasaaradda arrimaha gudaha dadka dhaqanka oo ama salaadiinta ah ama nabadoonnada dad la yaqaan oo tirale ayay ahayd maantay waxa waaye qoyska 20 qofood ka koobnaa nabadoon oo sameeyay waxa laga yaabaa marka in cid mas'uuliyadii loogu hagaagaahuba inay aad iyo aad u yartahay marka runtii waxaan arrintaas su'aashaada haddaan dib ugu soo noqday ay tahay mas'uuliyadda aaga umay cidda sheeganaysa ma ka baxsan doonto berri iyo shalay wixii dhacayna uga baxsan doonto berri waxa dhacayna ma uga baxsan doono haddii ay qolo kamida labadaas dowlad goboleed iyo khaatumoon ognahay iyaga laftooda inay faraha kula jiraan deegaamadaas mas'uuliyadaas waa inay cid u cadayso aragtidu waa nooca aad iyo aad baad cilmi u mahadsan tahay waxaa noo soo noqday oo khadka ku soo noqday Cabdirashiid Xaashi oo khadka Toronto ku jira Cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay hababka iyo hanaanka loo maro fududeynta xal nabadeed in loo helo colaadan qoloqolada ah ee hubaysan sidee ugu sahlan baad isleedahay oo xalkeedu ku fududaan kara waa mahadsantahay doodana waan dhegeysanahay runtii intaan ka maqana waan dhegeysanahay odayaasha si fiican bay u qaada dhigeen horta macnaha hadda waktigan casriga ee lagu jiro wakti bay leedahay waktiga xorriyadda ka horreysay iyo waktiga kasii horreeyey iyo waktigan gumaysigu imaan iyo hadda sidaa loo yaalay mar baa libaaxa iyo ruwaaga iyo dawacada laisku waardiyenayay marka haddana 2018 waa la marayaa oo beel kasta sida guuleed u sheegay ay hubeysan tahay marka horta xataa xalalku waxaa loo baahan yahay in maarata annagana waxaa noo sii weheliyaba burburka oo dowladnimadeena ka burburtay aa noo sii wehelisa iyo layskuba haysto cid meesha taladii laysku haysto meel kasta intaasoo qole ay leedahay annagaa ka talina hadda dowladdan federaalka xataa xamar fadhida dalkoo dhan annagaa ka talina ay leeyihiin ilaa marka mas-uuliyadda markaas dhimanaya iyo xal uhelida xil baa ka saaran somaliland xil baa ka saaran waa sheeganaysaa puntland xil baa ka saaran khaatumo xil baa ka saaran marka intaasoo xataa qole oo sheeganaysa haddana xalna u hayn laftigeedu waxay qayb ka tahay xaqiiqooyinka cusub aan ku nool nahay marka xalalku waxay la rabaa inay la noolaadaan duruufaha lagu jiro iyo waktiyada lagu jiro
guud ahaanna nabadda iyo amniga cidda laga rabo qofkana waa laga rabaa sida guuleed sheegahaya qofka horta inuu isagoo horta ogaado dee inuu ilaahay iska cabsado dadkaan is isku dilin dadkii macnaha ama degmaha joogaan oo gudoomiye degme iyo odayaal dhaqameed iyo culimo iyo ganacsato ka lacag ka dhex abuuranaysa ha noqoto ama dawlado sheegsheegaan ha noqoto ciddii mas-uuliyad lehba mas-uuliyad baa ka saaran laakiin nuxurku waxa weeye runtii amniga waxaa suga oo inaan laysku dhicin oo fawdo dhicin ka shaqeeya dawladnimada haddaan marka dawladnimo lahayn oo aan la helin oo ama ha laisku dilo tukaraqa ha laisku dilo ama kalshaale ha laisku dilo ama halkaan ha laisku dilo ama maaragtay markaha laisku dilo iyo maaragtay iyo aageeda meeshii laisku dilayaba waa sansaanta dagaalada beelaha iyo dagaalada noocaanana waa sansaanta dawlad la-aanta meeshii waxbaan jirin system baan jirin dadna waa ishafrahayaan oo dawladaan hay leeyihiin markaan oo kale markay gaari jirtay berigi hore colaadaha waxay ahaan jireen yaa maali jiray markaan marka waa inay yaa maali jiray oo yaa caqli leh yaa ka naxaaya nin kasoo jeeda degaanadaas kasoo jeeda aan saaxiib nahay baan hadda ka hor dagaalo ka dhaca aradaas ma waxaan irniyo hawshaan maxaa in ku dhacay dad culus ba ahaan jirteen saan maxaa arrinta u tahay maan iri marka hadal wanaagsan buu ugu yeriyo runtii maskaxdayda ka fiqi waayey wuxuu yidhi baashaan annaga waan soo dhaaftay hala soo galo dadka kale ha soo galaan buu yidhi marka hadda waxaa loo baahan yahay culamada soomaalida nairobi fadhida iyo kuwa qurbaha fadhiya iyo kuwa gobolada kala fadhiya iyo kuwa hargeysa fadhiya inay horta arrintii iyo kuwa odayaasha dhaqanka oo rasmiga ah oo taariikhda leh kuwan oo caana booraha isku daadiyey maha laakin kuwa rasmiga ah oo taariikhda leh inay runtii macnaha maxaa la yidhahdaa arrintii ku xeel dheeraayeen waxay ahayd inay nabadda ka shaqeeyaan dadkaas horta in dawladuhuna empower gareeyaan iyo dadka tijaarta oo lacagta haysta oo ay wax taraan oo ufududeeyaan safarada ufududeeyaan oo sanduuqa nabadeed la abuuro sanduuqa nabadeed in la abuuro oo peace fund oo qofkii nabad raba oo ku shubo $100 $20 markaas culimada iyo dhaqanka culus ama ha joogaan dirafdhaba ha joogaan ama jigjiga ha joogaan ama nairobi iyo gaarisa ha joogaan ama hargeysa ha joogaan ama muqdisho ha joogaan dadka dee rasmiga oo dhaqanka ah iyo culimada loo soo istaagayo inay meeshii dhibaata ka taagan tahay ku baxaan waa loo baahan yahay dadka kalena ay ufududeeyaan sidoo kalena waxaa loo baahan yahay qof kasta in dee sida guulasay dadka in la fahansiiyo dadku inay intay dad dilaan aysa adduunkana kuma badbaadayaan aakhirana kuma badbaadayaan marka runtii dadkan isafrayaan inay runta usoo dhawaadaan baa loo baahan yahay dadka shaqada lahaa iyo shaqada ka baxayna inay shaqadooda usoo gacan banaanaadaan bay u baahan yihiin hadaa odayaasha dhaqanka iyo dadka badankiisa waxaa fasahaadiyey siyaasadda la geliyey oo maaragta aada loo geliyay fasahaadisay laakiin hawshay ku firfircoonaayeen oo yaqaaneen oo geed kasta kasoo geli jireen waxay ahayd nabadda iyo nabad keenid wax kastay xallii jireen farsamooyinkay gaareen runtii soomaalidu siday dagaalada u joojiyaan ama nabadda u xalliyaan adduunyadan horumarka sheeganaysa ma gaarin dadki islaayay baa gabadha isa siinaya iyo wiilal isa siinaya dadki islaayay baa macnaha runtii macnaha kala garbaxayo si xaqa u kala garbaxayo marka dhaqan baan ahaan jirnay waxaan noqonay dawacadii dhaqanke socodkeediina ka tagtay kii nebigan aan gaarin wixii aan naqaanay oo diin iyo dhaqan ahaydna kuma dhaqmayno dadka sheeganaya waxbaan nahayna amnigii ma sugayaan dadkii ma kala celinayaan hubkiina qof kasta iyo gabar kasta iyo xaafad kasta lagu haysaa marka runtii waa wax keenaya kulligood in ceeb dhacdo oo layskuna ceeboobo layskuna fidnoobo nabadiina ceel ay kusii dhacdo marka arrintan waa in waxaan aaminsanahay in loo sameeyo sanduuqa nabadeed dadkii hawshaan lahaana ay usoo bambaxaan macnaha aad baad umahadsan tahay cabdirashiid xaashi halkaad nagala socotaan waa b b c london dooda jimcaha oo ay falanqeynayaan cabdirashiid xaashi iyo guure saalax iyo cilmi faarax webi waa tahay guuleed oo muqdisho khadka ka jiraan u baaqaya mar kale haddii la damco guuleed 2 qolo in la kala dhex galo hab dhaqan ha noqoto ama mid casriya ha noqoto sidee mushkiladda ay isku hayaan loo kala hormaraya masalan haddii la damco in laysuba keeno oo dadkii laysoo hor fariisiyo intaan heshiiskoodaba la gaarin waa mahadsantahay cabdinuurow walaale horeyna way u dhacday in dadkan laissoo hor fariisiyey oo heshiiska gaaray colaadin hadda soo laabatay laftigeeda iyagoo ay lamid tahay colaadaha kale oo ka dhaca deegaanada soomaalida oo dhan runtii cilada meesha ku jirtaa waxa weeye maxaa mar walba kalifaya haddii dadkani inta la isku keeno oo laysa soo hor fariisiyo oo dhaqankii iyo waxgaradkii yani beelahan intay isku yimaadaan oo heshiiyaan
oo marka lagu kala tago in wax la kala qortay oo lagu heshiiyey meeshii uu ka dhaco inay haddana si fudud kusoo laabato oo weliba dardarkii yani ka daran haddana ay qaadato colaadii. taas way tan waxaan isleeyahay cabdinuurow u baahan in maaragtay bal dib la isku weydiiyo maxay heshiisyadan yani hirgeli waayeen. waana inta badan wixii akhyaarta ay ka sheekeynayeen oo waxaan jirin dadkan gacantii dawladeed ee waxa kan ka korayn lahayd oo ka adkaan lahayd. waxa dhan waxaa haribaya 2-3 wiiloo jiriya oo nin miskiin oo meel marayo oo xaafada kale ah soo dilaya, kuwii kale waa soo ordayaan, kuwii kale dilayaan. waxaa laga yaabaa kii dhibta geystay oo wax soo dilay beeshii gadaal bay marsanaysaa, waa ama haddii xataa deegaanka lagu hayn kari waayo waa la dhoofinaya, lacag baa marka waxaad moodaa bulshada laftigeedii inay bal isweydiiso war waxa kan maalin walba heshiis baa la gaaraa. wiilashan yaryar oo wax haribaya haddii xataa gacantii dawladeed ay meesha ka maqan tahay, qaab nooceeya kale aynu ku xaqiijinaa waxaynu ku heshiino inaynu hirgelino. waxay la tahay ko waxaa kamid a in dadka mar walba jebiye heshiiska oo dhibaatada soo celiya in isku meel looga soo jeesto oo qofkaas uu noqdo tallaago uu noqdo. la isku dayo in dhammaan maamulada deegaanada ka jira laakiin marmar baa guuladaan kaa dhex galay marmar waxaa jirta wax lagu heshiiyey 2 beelood oo lagu baajiyey dhiig fara badan sida qaan iyo mag iyo duug iyo wax walba lagu sheegay oo aan la bixinin oo ciddii dabageli lahayd aysan ka daba tegin oo markii la arkay labadii qolo inay heshiiyeen la isaga qaato inay arrintii dhammaatay oo taasina ay noqoto markaa qoladii wax sheeganaysay inay haddana bilowdo dhiigina iyaduna daadiso. marka dabagal la-aanta heshiisyada la gaaro baa qeyb ka noqon karaya bay ila tahay. cabdinuuro waa tii markii u horeysa aan ku furfurtay oo inta badan marka wax dhacaan bay dadku soo ordaan boobta si fiican baa kor looga dhayaa, laakiin haddana fulinteedii iyo haddii wixii lagu heshiiyey wax kasoo laabtaan waxyaalaha inta badan lagu heshiiyaay wixii dhacay keliya lagama heshiiyo. xataa heshiisyada inta badan waxaa ku jira haddii wax soo laabtaan sidii la yeeli lahaa. inta badanna waxa ay wax kasoo laabtaan waa labada dhinacba, wixii ama lagu heshiiyey fulinteedii ha ahaato oo wixii horey u dhacay iyo wixii gadaal ka dhaca wixii lagaga heshiiyey oo aan la fulin. marka waxaan isleeyahay dadkani sida cabdishii sheegay waa dad maaragtay yani weligood soo xalisan jiray dhibaatooyinka ilaa xiliyadii maaragtay casriga kan aanba lagu jirin. na macquul ma aha in waxa kan qaab loo xaliyo la waayo xataa haddii gacantii dawladeed ay maqan tahay oo marxaladan maanta lagu jiro oo dhibta badan oo kumeel gaarka ah oo ilaahay aan ka rajeynayno in maaragtay nidaam dawladeed oo dalka oo dhan gacanta si fiican ugu wada qabtaay uu maaragtay uu inoo hirgalo. laakiin haddana marxaladan lagu jiraayo waxay u baahan tahay taas haba la gaare in maaragtay dadkani ay la yimaadaan qaab lagu xalinayo in wixii lagu heshiiyey aysan wax kasoo laaban. waxaan isleeyahay dadka wax geysanaya oo inta badan garab ka hela qabaa'iladii kasoo jeedaan ehelkood inay tahay qof walba oo meesha joogaayo inuu ogaado ninkaan dhibta geysanayay dhibta uu geystaayo beri aday kugu soo laabanaysaa. oo naftaadi runtii wayna dhacdaa in badan oo kamida oo ama maaragtay gadaal marsaday laftigoodiiba ama naftoodii ama ehelkood ama kuway dhaleen bay dhibti taabataa. marka horta in isku meel looga soo jeesto waxaan isleeyahay waa xalalka mid kamid a. labaad in hubkan tirada badan oo weliba hadda technicada maraya aaga maaragtay waxgaradka iyo dadka cuqaashaahi iyo waxgaradkay ay xal ka gaaraan in hubkan waaweyn ugu yaraan deegaankan laga dhulka caagan laga dhigo. oo waxa hadda sii badinaya waxa weeye qoryihii waaweynaabaa si fudud dhulkii looga dhex maraya. marka marna macquul maaha xabadiyo runta ku jirta iyo dadkiiyo waxa weye isku jeedaay inay isla gafaan. ugu dambeysa waxaan isleeyahay oo kaalintii runtii cabdishiid ka hadlay oo waxgaradka iyo culimada oo dadkaan runtii in bal wacyigelin badan loo sameeyo xataa kasokow aakhiray intaanba la gaarinba dhibtaan guri walbay taabatay. hadday marka sii socoto kan nool iyo maaragtay kan dhalan doonaba waxa weeye waxay noqonaysaa colaad sii taabanaysa. marka waa in qof walba uu dareemaa inay isaga dan ugu jirto iyo maslaxad dhibtaan inaysan maanta halkaas ii dhaafin. aad iyo aad baad umahadsan tahay. laga maarimayo nidaam dawladeed oo cabdinuur oo maaragtay
waxaan oo dhan ka koreeya. guuleed aad iyo aad baad umahadsan tahay khiyaartana dhegeysanaysaay halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee BBC London. bal aan dhegeysana markaan aaraa kale oo dhegeystayaal ay cod ahaan noogu soo direen. dhaqameedkii hore ee wax kala badbaadin jiray ee sharaftada Soomaalida eegi jiray ee dhiigga bini'aadanka ku hagoogan jiray waxaad moodaa inuu dabar go'ay odayaashii inay noqdeen 30 jir 20 jir waa noocaas lagu leeyahay maanta waa caaqilo waxaana la yiri 20 jir meel ka dhac laga waayay waxba ka siya 30 jir xaraga laga waayay waxba ka siya 40 jir xoog laga waayay waxba ka siya 50 jir kale laga waayay waxba ka siya 60 jir lixjecel laga waayay waxba ka siya 70 jir masaajidka laga ag waayay waxba ka siya maanta Soomaalida colaadaheedu waxay yeersadaan nin dhalinyaro qariska tuura iyo oday isaga laftiisa xuma ka tarisa muraara dilaaca ku dilaya sida axmaqnimada ee maatada loo barakicinayo ee hooyada loo barakicinayo ee dhibaatooyin ku jiraan. magacaygu waa Sayid Usmaan Sheekh Ibraahim waxaan joogaa Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. Soomaalidu way isdili jirtay waxayna isku dili jirtay daaq iyo biyo iyo aano iyo wax la mid ah laakiin way ka heshiin jireen. dhibaataduse waxa weeye marka la isku yimaado la dhexdhexaadiyo beelihii la dhaariyo dadkii wax karadkii odayaashii inuu haddana dagaalkii dib halkii uga bilowdo waa dhibaato weyn oo aan xalkeega la heli karin waayo dadkii kitaab quraana lagu dhaariyey oo wax garada oo dadkii ugu mudakarsanaya in haddana waxa weeye ay ka baxaan heshiiskii oo dagaal dib u bilowdo waxa weeye waa dab dhaxmooday iyo dawo bukootay iyo durdur oomay. waxaa wakiin daayir gowra joogtana magaalada Muqdisho dagaalada sokeeyo in ay soo noqnoqdaan waxaa sababay dadkii oo iskugu faanayo in ay isdilaan iyo wadankii oo aysan ka jirin dawlad dhexe oo ogaato marka ay ballamada kala saxiixanayaan. marka waxaa fiican dadkaas mas'uulka ka ah marka ay ballamaha qaadanayaan dadka isdilaya inay u sheegaan ballamihii ay kala qaataan oo ballanta sideeda loo oofiyo ayaa looga gudbi karaa qabiilka. dhaqameedkii hore ee wax kala badbaadin jiray ee sharaftada Soomaalida eegi waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi. gabadhaasi waa Faadumo Ibraahim run ahaantii nagalama baqaysho aaraadeeda barnaamijkan iyo barnaamijyada kaleba in ay fikradeeda ka dhiibato teeda aan u noqdo akhyaarta martida noo barnaamijka qodobkan falanqaynaysa haddii gabaabsi ay noqdeen dadkii ehelka u ahaa xalka colaadaha dawladduna awood haddan ay ciidan inta ugu dirto meelihii oo dhan ay gacanta ku dhigto aysan jirinin maxaa xala cilmi waxaa xal ah horta dadka Soomaaliyeed oo labada jaanib ah oo dhibaatadaasu ay muddada dhowrka sano ah ay dhex tiilay ayaga waxa looga baahan yahay in ay maqlaan una dhaganuglaadaan dadka Soomaaliyeed oo aan u kala harin meel ay joogaan baaqyada nabadeed oo culumada iyo isimada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay dirayaan horta inay u dhaganuglaadaan oo ay ogaadaan colaada inay nabad ku doortaan in ayaga laga rabo inay qodobkaas waa qodob muhiim ah. qodobka labaad sida Cabdirashiid uu yiri walaalkii kalena ku raacay maanta haddii aan lahayn dawlad dhaxo awood leh oo ciidan geyni maamul goboleed la ana xukuma dhulkii oo hoos yimaada mas'uuliyadda qaadaysana aan lahayn aan ognahay in tukarraq la isku haysto oo laamiga la taagan yahay waxay la tahay marka ereygii Cabdirashiid uu yiri oo ahayd yaa maali jiray dadka Soomaaliyeed oo aqliga u saaxiibka ah oo ama deegaanadaas ku hareeraysan ama meel kastoo Soomaaliyeed jooga la rabaa qof walba inuu fadhiyo ka kaco ka qayb galo qofkii lagu tuhumayo khibrad iyo waayo aragnimo iyo daacadnimo iyo diin iyo garnaqsi Soomaaliyeed lagu yaqaan dadka Soomaaliyeed dad iswada yaqaana way weli dadku ma dabar go'ina weli dadka dad baa u nool dadka Soomaaliyeed oo isleeyahay weli dadka nool yihiin dadka nool waxaan ula jeedaa waa la nool yahay laakiin dadka wax qarka ah oo dadka kala saari kara oo inay arrinta u kacaan deegaanka iyo dadka ishaystaa ay la yimaadaan rabitaan in waxa Soomaaliya ka qaylinsiinayo dhibaatada ku dhacday in laga joojiyo in la rabo maamulada aagagaas ka jiro haddii aanay kolley sheegayn mas'uuliyad ilaa iyo hadda ma maqal qolada deegaanka annaga madax ka ah haddii aanay jirin qolo sheeganaysa
waxaan iyagana usoo jeedi lahay inay fududeeyaan oo aynay caqabado iyo shuruudo iyo gacmo siyaasadeed laga daayo dadkaas Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo jiilaalka ku jiro oo biyo la'aantu haysato oo daawo la'aantu haysato oo laga yaabo qaarkii dhaawacmay meelay mariyaan inay la yihiin inay ka geystaan dhacan in aad iyo aad inay muhiim u tahay arrimahaasaan raba ayaan qiyaasayaa inay yihiin arrimaha wax looga qaban karo qodobka ugu muhiimsan waxa weeye haddii la helo dadku inay diyaar u yihiin arrimahooda la dhex galo dawladaha deegaankuna ay diyaar u yihiin inay arrintaas caqabada aanay ku noqon dadka dagaalka maalgelinayaahuna ay maalgelinayaan ay u jeediyaan dhaqaalahooda inay ku nabadeeyaan dadkaa ku nabadeeyaan wixii ka dambeeyo garnaqsiga dadkaas wuxuu u baahan yahay geed hoostii iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo la yaqiinay in mushkiladda ayada ah oo sida hadda qoraalada aan ku arkayno ilaa 6-7 sano soo taagneed in si runa loo dhex galo oo laga soo bilaabo waxa la wixii go'aamo ahay ama heshiisyahay oo horey loo galay oo fuli waayay sababtu waxa weeye dadka Soomaaliyeed ama beelaha Soomaaliyeed dhaqamaa jiro inta badan waanu ka soo shaqeynay waana ognihiin dagaal waliba waxa laga yaabaa inuu guul sheegto waxa laga yaabaa qolada dambe inay tiraahdo annagu kaas waana looga guulaysaa dagaal kale ayaanu galaynaa marka si taas looga gudbo waxa loo baahan yahay dagaaladii dhacay oo dhan wixii dhibaatooyina oo dadkaas soo kala gaaray in si muuqaal leh oo dadkaas Soomaaliyeed oo ishaysta in loo xalliyo laga soo bilaabo mushkiladaas 2014 oo aan igu maqaalaynay dagaaladaas bilaabatay ilaa maanta wixii dhacay wixii go'aamaha la gaaray in la fuliyo loona helo waqti badan oo loo dhabar adeego dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyaduna haddaysan awood lahayn ha ku kaalmeeyaan awood dhaqaale oo dadkaas Soomaaliyeed oo culimada oo tagaya oo juhdigooda iyo waqtigooda inay siiyaan inay ku noolaadaan oo shaqada iyo hawsha ku wadaan cilmi aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageysta ayaa wuxuu yiri khiyaarta martida ah ii weydii cillad kale oo joogto noqotay oo dagaal beeleed mar walba sababta waxa ay tahay buu yiri dhul iska cidla ah xataa magaalooyinka aan u dhoweyn oo la isku dilayo oo la kala sheeganayo taas sidee looga bixi karaa buu yiri haddaan ku hormaro Cabdirashiid Xaashi cabdin waad mahadsan tahay khiyaarta kale runtii aad bay uga hadleen hawshaan u sharaxeen haddaan wax yar hadalkoodii aan kusii adkeeyo gaar ahaan walaalkii ugu dambeeyey horta soomaalidana mid baa la gudboon guud ahaan soomaalida la gudboon BBC-na aad bay ugu mahadsan tahay mawduucan inay ahamiyadda iyo culeyska uu leeyahay inay siisay oo ay dhici karto maaragtay guri kastoo Soomaaliyeed qof inuu ka dhageysanayo marka aad ba ugu mahadsan tihiin Soomaalidaas marka dhageysanaysa ama hawshaan la socota horta ayaga mid baa la gudboon siyaasiyiinta iyo dadka maamulada joogjoogana mid baa la gudboon dadka isdagaalamahayana mid baa la gudboon horta dadka isdagaalamaya sida anigu aan maqlayno inkastoo dagaal Soomaali iyo aysan noocu yahayba aysan banaanayn oo maaragtay nin Kismaayo salkeeda degan iyo nin sanaag salkeeda degan oo aan is aqoon oo isku khaldamay xataa nimanku ma ahan nimanku horta waa niman walaalo ah marka horta dadkan dad oo maaris ka yimid oo nin maaris kasoo degay ama dayaxa kasoo degay iyo nin dalkan adduunkan deganaa maahan waa dad ehel ah oo jifo hoosaayo hal beel isku ah marka horta dadkaas waxaan dhihi lahayn ilaahayna waa uga baryana inuu xaqa tuso ayagana waxaan ku dhihi lahayn horta xoogaa dad dhaqan beelaha Soomaaliyeed beelaha dhaqanka ugu badiya oo ugaafyadooda iyo garaadyadooda ay taxan yihiin wey 40 ay taxan yihiin wey dad la yaqaano waa dadkaas dhaqankana ku horeeya ayaga marka horta waa inay hoos u ogaadaan dadka isdilhayaan ma ahan dad maaris uga yimid iyo aliens ma ahan walaalahood taas marka waxaan rabnaa inaan xasuusino ayaguna bal horta hamar isfiiriyaan waa ceeb waa in mawduucaas ayaga taas horta ma qabato taasaan intaas uga gaabsana inkastoo aan jeclaan lahaa intaas aan kasii faahfaahiyo annagana waxaan looga baahan yahay dadka dawladaha jooga iyo maamulka sheeganaya inaan ogaano horta waxaan waa mirihii burburka dawladnimadu markay burburto foolxumada ka dhalanaysa
waa tan laba isdhashay iyo laba walaalaa iyo inay luuq guri kasta laba isku haysto isku ceejinayso oo luuq iskula jirto marka waxaani waa midihii ka dhashay dawlad la-aanta iyo furfurka sidaas darteed waa hawshaan in la fogo oo la reserve gareeyo dib loo celiyo oo xal loo helo oo dawladnimada iyo is-ogolaanta iyo imaansiga in loo dadaalo oo dawladuhuna u dadaalaan shacabkuna u dadaalo dawladaha waxaan kula talin lahayn waxaan mara joogaan dawladda federaalka ee dalkan innaga madax ka sheeganaysa ha noqoto ama kuwa somaliland jooga ha noqoto ama kuwa puntland ama kuwa khaatimo inay foolxumadan fursad u bedelaan oo sidai isugu soo dhawaan lahaayeen oo dadkaas macnaha waxyaabaha sida walaalahay sheegeen waxyaabaha soo noqnoqshada keenahaya dawladnimay u baahan tahay iyo dadkan in lakala fasaxo oo danahooda ay kala raacdaan oo beero qotaan oo ceel qotaan oo ciyaalka iskuol u dirsadaan oo qoryahan ay la roorhayaan laga qaado waxaasoo dhan dawladnimaa keeni karta goboladaasna waa gobolada soomaaliya ugu saboolsan abaaruhuna ay ka adkaadaan markasta ay ku dhuftaan badna ma lahan dekadna ma lahan shaqina ma jirto dadka iyagaa iska soo horbaxaya marka dhowr bilood joogaanba marka kuwaan horta madaxda sheeganaya adduunyada kale haddii lugariid yar dhaco ama wax yar dhacaan ama baabuur gubto oo magaalo qarax ka dhaco madaxweyneyaasha safarada soo gaabiyaan madaxda soomaaliyeed ama madaxweyne muuse bis ha noqdo ama cabdiwelikaas ha noqdo ama madaxweyne farmaajo ha noqdo tan inay horta fursad ka arkaan oo nabadeynta ummadda soomaaliyeed iyo in shidada layska daayo inay ka fursad u bedelto walaxmaada horta fursad in loo bedelo oo laga xajiimoodo oo laga diidiyo waayo qofka soomaaliga hal hadduu yahay iyo hadduu konton yahay baaqiya nabadeedna waa direen oo ku aadanaa colaada madaxda dawladuhu baaqiya ma diraan shacabka iyo xarunta ismaaciil jimcaale baa walaaca muujisa iyo annagaan walaaca muujina dadka iyaga sacabooleyda ma dawladuhu waxbay furdaamiyaan marka nimankaas furdaamin baa looga baahan yahay walaaca shacabka ale inteena kale oo soomaalidan waxaan looga baahan yahay in aan horta runtii aan foolxumooyinka diidno oo wax hadda waan xanaf baanay waxaan u dhacay inaan waxba ka diirahayn October 14 baa waxaa dhimanaya 600 oo qof maalin kadib meesha waa xaaqanta waa dhisan tahay halkan 100 qof lasoo sheegayaa maadaama 20 sano dadkeena dhiig qodanayay dhiiggii oo macnaha diinta uu ka hadashay oo dhaqanku aad looga hadlay baa noo fududaaday marka taas horta waxaan ka dhihi lahaa hawshii walaalahay tan kale oo su-aasha kooban oo hadda ninka qof kula soo hadlay kusoo weydiiyey runtii markii dee dadku ay jihooyinku ka dhumaan oo danihii waaweynaayo loo bixi lahaa laga mashquulo ba waxaa la yidhi maamaha baaba jirto waxaa la yidhi gabdhuhuna iga raalli ahaadaan waxaa la yidhi islaantii dhali weyda aleelay ku waalataa markii la wareero oo dadkii danihii iyo iskoolaadkii iyo waxbarashadii iyo shaqadii iyo baniaadamka in lala socdo la waayo baa waxaan deere hordiin baa laba walba meel isugu haysta degaan walbana waa ka jirtaa waxaana keenaysa rajo la-aanta iyo quusta kuwan badaha ku dhimaanaya quusta keenaysa marka soomaalidu waxay baahan yahay in dadka baniaadamkaasi u nool yihiin loo soo noqdo waa tahay waxaan siinayaa markaan maxaad ku diri lahayd cilmi wax kale kuma dari lahayn waxaan ku darayaa walaalaha soomaaliyeed oo meeshaas degan waa maqlayaan barnaamijka galabtay iyo baaqyada soomaaliyeed inay la yimaadaan dhaganugeyl culayska saaran iyaga ayaa dadka soomaaliyeed aad moodaa inuu diyaar u yahay inuu ka qaaday inay la yimaadaan dhaganuglaan una bedelaan colaadii iyo fidmadii iyo dhibaatadii dadkaasi uga dhintay inay wixii hadda ka dambeeyaan nabadii ku bedelaan dhanka haddee gurmadka iyo culummada soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed horaan uga hadalnay waa yaa maali jirayay cidii gurmad kartaa ama u dhawe inay tagto cilmi webi aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa daqiiqada hartay inuu noo soo khatimo guuleed saalax waa mahadsantahay cabdi runtii walaalihuna waxba kama tegin way dhameeyeen waxaan halkayga daqiiq ku qaadan lahaa inaan walaalaha runtii colaadaasi ay kusoo laalaabatay oo deegaanada jooga ay ilaahay ka cabsadaan runtii marka dhibta noocan oo kale ay dhacdo waxaa la yidhi bugcadda dhiig ku daata islaamku waa bugcadda ilaahay uu ugu neceb yahay bugcadaha dhulka marka inay runtii dulmigaa tirada badan oo dhexdooda ay iskaga geysteen xaafadaha badan oo maaragtay la agoomeeyey oo dadka badan ehelka ah oo maaragtay islaayay inay dulmigaas ay naftooda ugeysteen inay ilaahay ka baqaan ilaahay dib ugu laabtaan waxa kani dadku wuxuu u samayn karaa waa gurmad weeye laakiin talada
iyo go-aanka inay colaadan joojiyaan cidda ay ka go'daay waa iyaga. aad iyo aad baad umahadsantahay guuleed ka barya inuu ilahay colaada ka dhameeyo. guuleed saalax agaasimaha macadka cilmi baarista ee soomaaliya xaruntiisa tahay magaalada garoowe oo khadka kaga jiray magaalada muqdisho, iyo cilmi faarax webi oo dowladihii soomaaliya kasoo shaqayn jiray noqdayna guddoomiye gobol haatanna aada ula socda xalinta colaadaha beelaha soomaalida, iyo cabdirashiid xaashi agaasimaha sare ee macadka heritage daraasaadka siyaasadda soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho, oo isaguna ku mahadsan oo toronto canada khadka kaga jiray, iyo barnaamijkii oo saalimiin isku soo dubiriday oo aan intaasi kusoo gabagabaynayno. waa inoo caawa haddii ay barraalli ka noqda tan iyo kulankeena dambe nabaday.